waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay in aan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto dhowrayana dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo kan qaranka iyo shuruucda kale ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 12 Janaayo waxa uu magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ka daafuray shir maamul loogu sameeyo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxaana shirkaasi u socon waayay sidii loogu talagalay mar kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Odowa ayaa 12 Abriil ka daafuray magaalada Jowhar isla shirkaasi kaasi oo loogu magac daray wajiga labaad ee shirka maamulka loogu sameeyo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe qabaa'ilada degan labada gobol ayaa loo qaybiyay ergada waana ku gacan sareen go'aankii ka soo baxay wasaaradda taasina waxa ay kaliftay in shirka maamulka loogu sameeyo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waqti dheer qaatay urur goboleedka IGAD ayaa gacanta loo geliyay gabagabadii waxaana ka soo horjeestay qabaa'ilada ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe walow IGAD ay ku guuleysatay markii dambe inay ku qanciso qaar ka mid ah qabaa'ilada degan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inay u dhisto maamul loogu magac daray Hirshabeelle kaasi oo calankiisa iyo dastuurkiisaba ay ansixiyeen ergo ay lahaayeen qaar ka mid ah qabaa'ilada ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe wasaaradda arrimaha gudaha iyo urur goboleedka IGAD ayaa odayaasha dhaqanka ka soo jeeda labada gobol waxa ay ku amreen in ay soo xareeyaan xildhibaanada u matalaya labada gobol waxaana taasi ay kaliftay in xildhibaano gaarayay 80 xildhibaan oo ay soo xuleen qaar ka mid ah qabaa'ilada degan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe lagu dhex arko ku dhawaad 10 xildhibaan kuwaas oo aan waxba qorin waxna aqrinin marka ay wax saxiixayaanna suulka ku saarta qadda buluuga ah taasi ayaa noqotay mid dadka ku dhaqan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo guud ahaan meel kasta oo ay Soomaali degto ay la yaabeen dhabanadana ay u qabsadeen wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD ayaa markii ay ogaadeen arrintaasi waxay isku dayeen inay dib u saxaan xildhibaanadaasi waxaana ay dhammaan ku bedeleen xubno xildhibaano gabdho ah si loo xaqiijiyo 30% inay helaan xuquuqda haweenka taasi oo ku qoran dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya waxaan isku dayay in aan la kulmo qaar ka mid ah xildhibaanadii wax qori waayay waxna aqrin waayay balse waa ay ku adkaatay inay ila hadlaan dadka ku nool magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaan sidoo kale wax ka weydiiyay aragtidooda ku aadan in xildhibaan aan waxba qorin waxna aqrin marka uu wax saxiixayana suulka qadda buluuga asaara gacanta uu hogaamiyo waxana ay ku jawaabeen dadka ma hogaami karaan dadkaas oo waxna qori karin oo waxna aan akhri karin ma hogaami karaan hadeen ay aniga gobolka Shabeellaha Dhexe ka hadlaayo dadkaas oo la sheegayo oo la leeyahay waxna ma qori karaan waxna ma akhri karaan ma hogaami karaan mana raacsanin waxaan u soo jeedinayaa odayaasha dhaqanka ee soo xuli nimankaas in ay ka fiirsadaan niman waayo arag jaamiciin ay hadda ay u doortaan taasi waa arrin aan suurtagal ahayn maxaa yeelay qof aan waxba qori karin waxna akhri karin ummad ma hogaami karo bulshada ma hogaami karo bulsho waxaa loogu baahan yahay cid hogaaminaysa inay aqoon lahaato aqoon ayaa wax lagu hogaami karaa oo la sheegay inay yihiin mid wax qori karin iska dhaaf xataa magacooda saddex xataa qori karin marka dhibaatadaasna waxaa sabab u ah nabadoonnada oo salku ah waayo waxaad arkaysaa nabadoonnadii sanadkan inaa imaana wax ma kasaayo aqoon ma laha wuxuu ku leeyahay nabadoon miyaha aan beesheeda waxaan rabaa in xildhibaan u noqdo waxna ma qori karo waxna ma kasaayo marka waa wuxuu sameynayaa casuumaad uu sameynaa lacag uu leeyahay aqoon ma laha marka taasaa sabab u ah in yacni nabadoonnadii oo wax ka seenay in meesha la geeyo maamulka la magac baxay Hirshabeelle ee lagu midaynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa ahaa mid soo jiitamaya muddo 9 bilood kaasi oo ka gaabiyay diinka hase ahaatee bishii ugu dambeysay ayuu noqday mid ku socda xawaare saa'ida maalinta bari oo ay ku beegan tahay 12 Oktoobar waxaa la filayaa in magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe lagu doorto gudoomiyaha baarlamaanka maamulka labada gobol sidoo kalena 15 Oktoobar waxaa la filayaa in la doorto madaxweyne ay ku midaysan yihiin gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe
waxaana arrinkani uu imaanayaa xilli magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan looga dhawaaqay maamul isna loogu magacdaray hiiraan state kaasi oo ay hadda socoto xulista xildhibaanadiisa. cabdishakuur cabdulaahi axmed, cabdishakuur shaashaa, Somali News TV, Jowhar.